البابا laga soo xiranayo maxaa loo ilaahay baa ku dhaarshay nin dhano madaxweyne sheeganayo oo shiina colay iyo kabta ayuu baa ka taytal fiican oo looga jecel yahay oo laga soo dhaweyn badan yihiin xasan sheekh maxamuud shiina colay waa ogolaaday inuu isku sawiro laakiin firdhiya waa bal fiiri xasan sheekh maxamuud shiina colay waa isku sawiray xasan oo khaatimo calanka baash wata maakhir wata firdhiya calanka Soomaaliya wadana waa diiday inuu isla sawiro waa diiday marka walaalayaal maxay inoo sheegaysaa maxaa dadka noocaas dadka masaakiin way faraha ka qaadno dadka noocaas maxaan kula murmi karnaa maxaan kula doodi karnaa walaal dadka masaakiinta inoo qobayna iska dayno war maasantii walaal ma aane mid yar baan raacinayaa ama maqla ama ha maqlinin intina ku jiray inta maqli doonta dhulbaanta waa aruurayaan hal sano ka bacdi hal qof kuma haraya xataa guryaha waa laga gadayaa guryaha garow ay ku leeyihiin waa laga gadayaa fosel weeye wallaahi oo bilaahi oo tolaahay waxay ku ekaanayaan meesha yiraahdeen waxaanu ka nahay dawlad wax naga dhaxaynaya ciidan iyo dakhli iyo macquusha iyo xoolo ma ay jidho dhulbaante midda labaad isaaq iyo hawiya annaga waa dariskayaga wax naga dhaxeeyo oo xumaata ana ma jidho daris wanaag baa naga dhaxeeya welcome baan leeyahay always because anigu elaborana waa leeyahay dekadana waa leeyahay maxaan ku horumarna waa leeyahay maxaan ku sheegaa facility kale oo qarsoon oo hoose baan leeyahay oo ummaddu aysan ogeyn ama aan ku noolahay ama soo bixi doona waa dawlad Puntland midda labaad oo kale aan inii sheegayo waxay tahay reerka Mareexaan la yiraahdo hil iyo hoob waa leeyihiin kursi baad isku haysaan adduun dabadiisna waxa weeye Puntland bay ka mid noqonayaan from now on hal la soo dhaweeyo reerkaas garabna loo noqdo gaashaanna loo noqdo hadal macaan oo wanaagsan oo welcome-na waa inaynu ka helaa waa inaynu ka helaa reer Puntland oo odeer iyo codkaaban bataasan kugu sheegaya abaal iyo ajir ayaga inoo kugu haya wax alaali waxaynu u dirnay wax alaali waxaynu siino 24 hours dad maxaan ku sheegaa aan quudinayno dhiigoodii aan xirayno oo maxaan ku sheegaa aanu faleebasa ugu hayno baa walaal annaga laqdabadayada ku jeeda iyo baaba ayaga igel jiraayga inay laayaan iyo inay dhahan hubka ku soo foorarinaynaa waxa loo dulqaadan kara malaha wax loo dulqaadan karo ma ahan ma jirteen iyo dadka degan Puntland way ogaadeen dhulbahante wanaag inaysan u wadin xumaan mooyaane meel walba oo dakhli la oo maxaan ku sheegaa malab ama macaan ana ayaga ku jira oo Puntland haysta 17 xildhibaan bay haystaan intaas oo wasiir bay haystaan wakaaladaha ay haystaan agaasimayaal bay haystaan ciidamadii inta maxaan ku sheegaa nafacala ayaga haysta walaal hostage miyaa lagu haynayaa always we are watch waa u jeednaa anagoo dumar ah u jeednaa haddana dhibaatada ay falkinayaan waa u jeednaa iyo aflagaadada maxaa annaga na qasbo ayaga qasbi waayey tell us war ka jawaaba dadkiina Puntland mise annaga dhigi karta bilaash noo ku dhacaya guys subkanay soo kar in adeeran ku degtay anaa u deganahay subkan soo saar waa maasan tahay genyo haddaad dhamaysatay beeldaajo ku soco bal aan qaybino codka hadalkan qaybino assalaamu calaykum waa idin salaamay cabaar baan idin dhegeysanayay maasha allah anigu weli hal arrin baanan fahmin oo hadda abaayo walaal genyo mudug hadalkii hadda ka dhawaajinayso anigu horta khaatumo iyo Somaliland Somaliland ma ima joogaan run ahaantii khaatumo waa dad tol ah waa family waa maamulkaas hadda la yagleelay oo weli socod baradka ah Somalilandna waa waxyaabo badan baan xuduudba ma lihin reer Somaliland marka wax badan baa isaga kaaya xiran khaatumo iyo wanaageeda iyo horumarkeeda iyo bari haday noqoto maamul goboleed isku qoondaanahay markay noqoto codka waa dadkii la soo dhaweysan lahaa oo ehelka ahaa oo la isku noqon lahaa gaashaan la isugu noqon lahaa oo haday noqoto 4.5 kasis Soomaaliya hadda ka jirta haday noqoto in the future codka iyo haday one man vote Soomaaliya u guurto in the future marka also na danaha Puntland baa ku jira dhaqaale ahaan ganacsi ahaan waa deedadan xuduud wadaagno weeye hadii anigu ma aaminsanayn awal in xubnahaas iyo 17kii ahaa in Puntland in si fiican sidii go'aanka loo qaatay loo kala saaray ahayd laakiin waa arkaa dadkaas I understand dadkii aan kala saarin oo raba Puntland iyo khaatumo inay
wax wada lahaadaan oo hal mid wada ahaadaan oo aaminsan in federaalka Soomaaliya iyo dadka 4.5 systemka ku jira ama hawiyaha ahaadaan ama dad kale ha ahaadaan inayna ogolaanayn oo ay khaatimo u badan tahay in federaalka Soomaaliya maamul goboleed buuxa loo diido in ama xataa si walba loogu diido oo matalaada loo diido oo hadhow la isku khasbanaado khaatimo iyo Puntland inay hal dawlad ahaadaan hadday rabaan xataa la kala shakisan yahay in khaatimo ay si gooniya maamul goboleed Puntland gudihiisa kamid ay noqoto dad baa aaminsan oo leh hadda xoogaa xanuunkii dagaalkii iyo baa jira laakiin dhowr sano kadib waxa laga yaabaa in qofku reality ay dhacdo oo maamul hawiyadiido maamul goboleed kale oo daarood uu yeesho marka dadka horta in la isku soo jiido oo dadku waxa waaba dad ehela waaye hadalladan xoogaa kala fogeynta ah oo bahalkii waxaan isku darsanaynaa Soomaaliland baa isku darsanaynaa khaatimana waa ka dulboodaynaa dad aan xuduud lahayn anigu hadalkaas in la fahansiyaan rabaa because hadalladan maqlo oo khaatima maqlo adeero beeldaajo dhageyso qof yiri maxaa la yiraahdaa waxba laga dulboodaya ama in adeeran ku fahansiyo hooyo weyda mine aan ku fahansiyo wax laga dulboodaya ma jirto anaga waxaan taaganahay dagaalkii waa dhamaaday muduga u kaadi dagaalkii waa dhamaaday okay dagaalkii waa dhamaaday Soomaaliland horta dad Soomaali baa degan taas horta waa inaad fahantaan waa dad Soomaaliyeed waxa degan Soomaaliland dagaalkii waa dhamaaday anaga marka Soomaaliland ma afka u buureena ilaa maantiyo qiyaamaha bilaabanayso may dad Soomaaliyeed waa shacab Soomaali waxaad ogtahay intaasoo mataqaana 100 oo student oo reer Puntland inay joogaan Somaliland today ee jaamacadahooda wax ka dhigtaan oo businesskooda ka socoto marka shacabka Somaliland anaga ma qaadeyno caro oo ma dhaheeno ma la hadli karno hadda nina soo karo yiri maxaa la yiraahdaa hebel u tay kara Hargeyso af Soomaali maaha reer Puntland reer Somaliland wax dhibaato ma jirto in adeer dadkan waa dad Soomaaliyeed maxay tahay dadka ummadan la sii fogeynayo marka in adeer anaga waxaan sheegayna waxay tahay meeshaan ka hadlayna waxay tahay labadan shacib wax dhibaato ma jirto mana rabno in dhibaato ka dhaxdhacdo waa la soo dhaweeyay waa Soomaali waa dad Soomaaliyeed ma garatay tolkaagana ayagaan ku rabin in adeer aniga ma garanayo tolkaana isku xoqaysid kuma rabaan 10 xildhibaan ee ka careysiin 10 xildhibaan oo 20 sano ka bacad soo baxay lagu leeyahay ku siinay ma garatay marka in adeer tolkaaga meeshooda ku joogaan meeshooda ama maamul ku ahaadaan ama yeesku ahaanin laakiin anaga walaal Soomaaliland caro u qaadeenin wala hawiyana caro u qaadeenin wala raxweynana caro u qaadeen Soomaali anaga friends aan lanahay say u dhan yihiin kulli saaxiibadeena waana soo dhaweynayna taas marka ninkii caro ka qabo asay u taala ma garatay muhiimadda waxa way Soomaalidaada wado dadkaaga dadka